حنسوي جيدنا سومال عن خلاص كلام دوبا عمر أيها كيفا أم عمر هدي أي كبشة قيسينا عاملين السرير كان xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maalintii labaad ku guda jira dooda ah xaaladda guud ee dalka Soomaaliland xildhibaanada ayaa sidoo kale aragtiyo kala duwan waxay ka dhiibanayaan jabhadda fuushan buurta gacan libaax baxdana aynu ka doodayno ama aynu iska weydiinayno xaaladdan amni ee dalku ku sugan yahay bariyaha dambe xaqiiqdu waxay noqonaysaa horta marka ugu horeysa inaynu taabanno maxaa sababaya amni xumada markay sidaa tahay haddaba haddii laga warwareego oo aan la taabanin waxa keenaya ee amni xumada keenaya aan la sheegin oo dabaka aan dawadeeda la gaarin amni xumada iyo dhibaatooyinka wada sii soconaya haddii aynu ka shaqaysiino caamileeda saliimka ah oo ah in aynu dalka doorasho ka qabanno iyada aasaas u ah wax walbe oo kabtoolkii halkaa lagu gubay ama lagu gooyey aynu dib u soo noolayno oo aynu keenno in aynu ka qabanno waddanka doorashadiisa saarta oo raalligelisa xisbiga oo raalligelisa ururada ninkii si kale u arkaya sigay jirtaa laakiin this is the reality-ga runta ah ee aynu ugu gurman karayno waddankeena maanta wataa ama aan yeelno ama aan من كسبوا يجودونها هاركو لكن حقيقة الماتش جاوا تيرت هذا تأويليا. تذكرنا الوالد اللي على هذا كم هذا صار سكوت. لما قمنا ندوبيا كلها كوسا. كوكلا كتيرنا لما قمنا. إذا كانوا حاجة بس حيليا. وروي دولة معناتها دور شديد وحينوا عليه كاين ناس اللي ما عندهم كذا ولا كذا شو حس الوطن اللغة كل ما يقولون حس النقطة. حبيب دور شديد تقول لك أنا كرم ما يبيجوا ويسمع في كل كرم ما وريال هو شيادور نسي الخلق تروح حسين يا مشرح بالحوينات في حرم عبد الله بدأ ويلد أديك مشرح بدأ ويلد أديك هل هو يتبقى قصارا هل هو يتبقى قصارا وين حطيها بقش هاي أركي كبش الدكتور كي توصله ويسوق كل يوم يسوق أقبله سبحان الله كمان لو هو قلبه أقبله من هذا وأقبله هتقول دينا ولا هذا أنا دينا بتذكر عليه وتجوب فعلا لا سمعت أما لو قلوا بينهم إلى الكونسول توصل وردك إلى دي خبرش عن الناس الرئيس وده كان عندك لو جوغالو عندك هذي لو جوغال ما كان عندك أنا لا حتى أنا وسودان بلا كان عسل بلا هي قراصة عاي كلام نصيه والسودرينا وحرج ولا سبي هنا بدأ يقولوا حنا إلهي قصصنا سبري ما نصيه قرك كبحدين قويس يقبل تبعه عقبين annaga naga geeriyooday ilaahay in xariisto waana dhacdo foolxun mudanayaal waxaan doonayaa inaan bogaadiyo aynu garab istaagno waxaa socda ergooyin badan oo nabadeed oo baahan la taageero dhammaantood taageerana waxaan lagu ducaynayaa in ilaahay hawsha ay u baxeen oo ku guuleeyo mudanayaal Soomaaliland waa qaran isku filan oo muddo dheer hormuud iyo horseed u ahaa nabadda iyo dimuqraadiyadda Afrika waxaynu nahay qaran awood iyo aqoon u leh inuu maareeyo ismarwaa kasta oo yimaada haddii ilaahay loo galo arrinta buurta gacan libaax waxay nooga baahan tahay in loo raadiyo hanaan nabada oo lagu xaliyo waa inay hogaamiyaasha saddex haysta qaran ay kulan degdega yeeshaan oo ku saabsan arrimaha doorashada bay xal ka gaadhaan iyo safgarad buuxa muranka doorashada mudanayaal uu nagu daba dheeraaday waa inaynu soo afjarno oo waa in hanaanka siyaasadeed iyo hoggaanka siyaasadeed ay si kaashadaan oo si niyad ah u maareeyaan muranada siyaasadeed oo nagu daba dheeraaday madaxweynihii hore koonfur afrika Nelson Mandela oo ka hadlayay colaadda iyo dhibaatada ay leedahay wuxuu yidhi carada iyo urkutaaladu waa sidii qof sun cabaya sidii u dila cadowgiisa suntaasina ka cabaya ayuu baytiishaa colaadda sokeeyana waa tagu daran ee ugu qoomamada iyo xanuunka badan oo guri kasta way saamaysaa dhibaato kastana way geysataa waxaan soo jeedinayaa ugu horeyn goluhu waa inaan ka gaabsan runta si aan looga daadegin wax ka sii dara haddaynu runta maanta ka aamusno foolxumo ka sii dara looga daadegin laba
waxaan aydidayaa baaqii nabadeed xildhibaanadii ugu horreeyay soo jeediyeen saddex waxaan soo jeedinayaa Somaliland tala qaran loo baahan 30 sano kadib waxaynu u baahannahay inaynu dib u fadhiisanno dareeno badan baa dalka ku kala jira waa la kala fogaanayaa waxaana u baahannahay ummadda in la isku soo jiido oo la isku soo dhaweeyo Iid Maxamuud Xasan telefishinka Sahan magaalada Hargeysa.